soo dhawaada saaxiibayaal, fiidiyowga waxaan kaga hadli doonaa filimka Barbar Deqow. Dhacdada ama sheekada filimka laga alifay iyo shakhsiyadda Jay Farma iyo Dia Kapoor oo ah labada qofood oo filimka ku socda ama leading actresska ka. Dia Kapoor aka DK waxa ay ku dhalatay sanadkii 1986 London, isbitaal ku yaala. Jay Farma asna waxa ku dhashay India. Dia Kapoor aabaheeda waa ganacsade, wuxuu u soo guurayaa oo familkiisa dhan u soo rarayaa India. Dia hooyadeeda waa British, aabaheedana waa Hindu. Waxay u soo guurayaan Hindiya oo ay halkaas ku soo wareegayaan, labadoodaba deegaanna ka dhiganayaan. Wuxuu waqtiga saamaxayaa in Dia iyo Jay ay isku noqdaan, hal goobna wax ku bartaan yaraantooda ilaa ay ka weynaadaan. Labadooda waxay noqonayaan dad saaxiibo aad isugu dhow, xiriir samaysta ilaa ay gaaraan heer ay guur goosiyaan. Jay wuxuu noqonayaa macallin ama professor ku takhasusay xisaabaadka marka xalintooda ay adag tahay in la xaliyo, wuxuuna bara jaamacadeed ka yahay college ku yaala Hindiya. Jay Farma oo markaa ah professor genius ku ah xalinta xisaabaadka marka ay adag tahay xalkooda in la helo, ayaa wuxuu u helayaa fursad ay soo bandhigtay jaamacadda Cambridge ee ku taala dalka UK in mas'alada xisaabaadkan qofkii xalkooda soo hela in ay sii doonaan fursad ay ku horumariyaan aqoontooda. Ayaa Jay waxa uu dirayaa mas'aladii markaas taagneed xalkeeda ama jawaabta saxda ay ku habbooneed xisaabtaas. Jay oo sidaa ku sugaya jawaab celinta jaamacadda Cambridge ayaa waxa uu guur ku heshiinayaan Dia Farma. Jay oo ku jira qabanqaabada arooskiisa, 2 maalmoodna ay ka dhiman tahay maalintii aqalgalkiisa, ayaa waxa uu fariin ka helayaa jaamacadda Cambridge. Fariintaasna oo ah in jawaab celintii uu kasoo sameeyay mas'alada taagneed ay tahay mid sax ah, jaamacaddana ay fursad u siisay in aqoontiisa ay sii horumariyaan. Jay oo aad ugu faraxsan jawaab celinta jaamacadda uu ka helay ayaa haddana waxa uu xaga jiidayaa arooska uu markaa galayo, wuxuuna ula muuqanayaa in uu ka hor istaagayo horumarkiisa maadaama Dia Kapoor aysan jecleen in ay qurbaha aado, ayna jeceshahay in familigeeda ay ku noolaato Hindiya, halkaasna ay nolosheeda ku qaadato. Jay oo degdeg aad u badan ka muuqdo ayaa waxa uu ka codsanayaa ninka markaa tafaafulooga ama faalalooga ay u yaqaanaan in uu guurka u dedejiyo maadaama waqti badan uusan haynin, kana codsanaya nidaamka guurka in uu wax yar ka yara bedelo si uusan waqtiga uga lumin. Farantigeliska kadib iyo aqalgalkooda, Dia Kapoor waxay soo wadaysaa Jay waxayna keenaysaa apartment marka uu aabaheeda hadiyad ahaan u siiyay. Jay oo ka cagajiidaya ku noolaanshaha Hindiya isna doonaya in uu horumarkiisa sii wato, Londonna aado, ayaa Dia waxa uu sheegayaa inuusan rabin inuu halkan ku noolaado, uuna doonaya labadooda in ay noloshooda ku horumariyaan London, halkaasna ay ku noolaadaan. Dhanka kale, Dia ayaa waxa ay leedahay Jay, maxaa kaa maqan? Indhahaagu xaggee ku maqan yihiin? Horumarkaagu waa aniga, indhahaagu maxaa kaloo ka maqan ay raadinayaan? Dunidaadu waa aniga ayaa adiga wax walba ku ah, wax walbana aniga ayaa ku qaban kara adiga. Jay oo u arkaya marxaladan in uusan ku horumarin karin nafsadiisa iyo aqoontiisa, ayaa waxa uu Dia ku oranayaa nolosheeda waxay ku dhisan tahay aqoonteeduna waa xisaabaadka. Dia oo aad ugu xun misna dareemaysa in uusan badaninin Jay ku noolaanshaha halkan, ayaa ayadoo cariisan waxay kaga tagaysaa guriga. Jay oo dareemaya stress iyo walwal aad u badan ayaa waxa uu markaa cabayaa dhala champagne oo meesha taalay. Habeenka oo dhanna waxa uu ka fikirayaa oo waqtigiisa ugu badan ku qaadanayaa sida uu Dia ugu qancin lahaa in ay halkan ka tagaan. Ugu dambeyn halkaa ayuu ku bir daboolmayaa oo uu ku seexanayaa. Markii la gaaro aroortii, Jay waxa uu soo toosayaa ayadoo wax walba ay isbedeleen, asigoo jiifa hotel ku yaala Thailand, gabarna ay dhinaciisa jiifto. Jay oo aad ula yaaba marxalada subaxan uu galay ayaa waxa uu ka soo baxayaa qolkii, waxa uu u imaanayaa gabadhii qaybta soo dhaweynta joogtay, waxaana uu leeyahay halkan waa halkee? Waxay leedahay waxaa joogtaa Thailand, magacayga waa Jay, fadlan ii fiiri goormeen halkan anigu imid. Waxay u sheegaysaa in uu yimid shalito, xalina uu halkan seexday. Jay oo aad ula yaaban isbedelka degdega ah ayaa waxa uu ku soo noqonayaa qolkiisa. Qolka marka uu soo galo wuxuu arkayaa gabadhii asiga dhinac jiiftay inayba tahay xaaskiisa Dia Kapoor. Jay oo aad ula yaaban isbedelkan dhacaya
ayaa waxa uu wacaya hooyadii waxaana uuna ku leeyahay hooyo maxaa waaye wax dhacaya anigu maxaa igu dhacay maamadii oo aad u faraxsan ayaa waxa ay leedahay adiga iyo xaaskaagu waxaad u baxdeen 7 waxaadna aadeen Thailand fadlan waqtiga ha ka qasin farxadiina qaata maalmihiina ku noolaada jay oo la yaaban isbedelkan dhacaya maskaxdiisuna aad ay u weydiinayso su'aalo tiro badan ayaa waxa uu maalintiisa dhan dalxiis kula qaadanaya Thailand xaaskiisa Diya Kapoor ugu dambeyn haweenkii marka ay socdaan jay haddana subax waxa uu soo kacayaa asigoo marxalad kale ku waqtiguna isbedelay xaaskiisa oo xaamilo ahna hortiisa ay taagan tahay ayna ku leedahay jay hurdada ka kac keen xanuun ayaa hayo fool ayaan dareemayaa fadlan soo bax waqti ma hayno jay oo la yaaban isbedelka waqtiga iyo marxaladda uu markaan ku jiro ayaa waxa uu leeyahay xaaskiisa goorma uur qaaday inteena joogna anaga maxaa aniga ugu dhacaya xaaskiisa ayaa ku oranaysa su'aalahaaga jawaabahooda waqti uma hayno keen xanuun ayaan hayo soo bax ugu dambeyn waa uu soo wadayaa banaanka marka uu soo baxo waxa uu arkayaa baraf soo da'ayo waxa uuna ogaanayaa cabaar kadib marka uu soo socdo in ay joogaan Cambridge London jay oo yaaban ayaa waxa uu xaaskiisa weydiinayaa goormeen anaga London nimid xaaskiisa oo dareemaysa xanuun waxa ay leedahay fadlan hadalka badan iga jooji gaariga hadalkaaga micno darada ah waqti uma ugu dambeyn markii ay isbitaalka yimaadaan isbitaalka waxa uu ku arkayaa familigiisa oo goobtaba kaga soo horeeyay jay oo yaaban marxaladda uu markaan ku jiro iyo waqtiga sida degdeg ah uu isku bedelayo ayaa ugu dambeyn xaaskiisu waxay dhalaysaa wiil kadib isbitaalka ayay kasoo baxayaan guriga ayay imaanayaan xilliga habeenkii marka la gaaro sida caadada ahayd jay marka uu seexdo haddana subaxii waxa uu soo toosayaa iyadoo waqtiga isbedelay asigoo dhex fadhiya xiiso uu ka bixinayo jaamacadda Cambridge arday badan ay hortiis fadhiyaan adduunyadana ay horumartay tiknoolajiyadana ay isbedeshay ayaa mid ardayda ka mid ah waxa uu ku leeyahay taariikhda ku qor sabuurada ardayga oo qoslay ayaa waxa uu ku leeyahay goormee u dambeeyay in sabuurad wax lagu qoro adduunyada waxay isku bedeshay tiknoolajiyad jay waxa uu darbiga ka arkayaa taariikhda waqtigan la joogo in ay tahay 2034 miraayad ayuu hortagayaa waxa uuna arkayaa inuu asiga yahay qof age ah eradana ay ka muuqato da'diisuna ay marayso 46 xiisada marka uu kasoo baxo banaanka waxa uu ku arkayaa wiilkii oo 16 jir ah misna ku sugaya banaanka waqti badan uu kaga lumay sugitaan wiilka oo aad u cariisanayo waxa uu leeyahay aaba maxaa kugu dhacay in badan ayaan ku sugayay fadlan la keen soo bax waan degdegsanahay waa lagu sugayaa jay oo la yaaban isbedelka dhacay ayaa waxa uu soo raacayaa wiilkiisa waxa uuna keenayaa goobta maxkamadda jay waxa uu ku arkayaa hooyadiis aadna waa uu farxayaa midaas waxa uuna leeyahay hooyo maxaa waaye wax dhacaya maxay tahay isbedelkan aniga igu dhacaya maxaa waaye waxa aan dareemayo hooyadiis waxa ay ku leedahay khalaas jiswaay hadda wax walba way ay dhamaadeen culays iyo walwal dambe ma dareemaysid jay oo la yaaban hadalka hooyadii ayaa waxa uu meesha ku arkayaa xaaskiisa Diya Kapoor waxa uu la yaabayaa ayadana qaabkay isku bedeshay waxa uuna leeyahay tikay maxaa kugu dhacay maxaa waaye waxaan dhacayo waxaan dareemaya meelo dareemaysaa jay oo yaaban ayaa waxa uu hal mar ka warhelayaa in goobta uu joogo ay tahay maxkamad sababta uu joogo ay tahay in ay xaaskiisa kala tagaan furiinkoodana halkaa uu ka dhaco jay oo yaaban ayaa waxa uu xaaskiisa ku oranayaa tikay maxaa anigu kaa sameeyey maxaan khalad kaa galay maxay tahay furiinka dhacaya waxa ayna ku leedahay wax walba oo ay dhammaadeen waa ayna ka dhaqaaqaysaa jay oo la yaaban marxaladda uu ka jiro iyo isbedelka ku dhacaya nafsadiisa cidna aysan jawaab siinaynin ayaa waxa uu maalintiisa dhan ku qaadanayaa stress iyo murugo habeenkii markii la gaaro oo uu qolkiisa yimaado sariirtiisa uu seexdo subaxii waxa uu soo toosayaa sidiisi lamid ah ayadoo wax walba isbedeleen da'diisuna ay noqotay markaa 70 jir irida waxaa kasoo galaysa gabadhiisa oo aad u weynaatay waxa uu ku leeyahay adigu neenaa soo ma tihid waa weynaatay waa isbedeshay waadna qurux badnaatay gabadhiisa oo la yaaban hadallada aabaheed ayaa waxa ay ku leedahay nakeen aabo adiga oo keliya ayaa lagu sugayaa hoos soo deg jay oo la yaaban waxa hoos kaga horeeya ayaa waxa uu kasoo baxayaa qolkiisa hoos marka uu yimaado dabaqa qaybta hoose waxa uu arkayaa
hooyadiis oo meyd ah. Jay oo ka murugaysan dhimashada hooyadii ayaa haddana waxa uu sii ogaanayaa in xaaskiisu ay guursatay nin markaa ay isla shaqaynayeen. Jay oo ka walwalsan waxa asiga ku dhacaya ayaa waxa uu ku soo noqonayaa qolkiisa, waxa uuna ku fikirayaa in uu wax walba xalkooda keeno. Ugu dambeyn waxa uu go'aansanayaa xirig marka uu faalalowgii gabadha u guuriyay xaaskiisa Jia Kapoor. Waxa uu go'aansanayaa xariga ka in uu gacantiisa ka furo. Dib marka uu xariga gacantiisa ka furo, waqtiga waxa uu ku soo celinayaa asigoo sariirtiisa jiifa. Taariikhduna ay tahay 2023. Waxa uu ka soo baxayaa qolkiisa, waxa uuna imaanayaa jikada. Waxa uu arkayaa labadiisa caruur oo aad u yaryar, xaaskiisa iyo sodogiisa oo aad asiga ugu qaylinayo. Jay oo aad ugu faraxsan isbedelka oo waqtiga uu sameeyay ayaa waxa uu isku dayayaa qaladka furiinka keenay in uu xalay. Maalintaa Jay waxaa hortaagan 4 marxalad inuu xalayo. Waa midda koowaad jaamacadda oo laga soo wacay laguna dhahayo fadlan waqtiga dhowr soo dhaqso, arrin muhiim ah ayaa xafiiska ku taal. Iyo xaaskiisa oo ku dheheyso maanta waxaan leeyahay bandhigayga ugu weynaa 7 sano kadib, fadlan ha ka maqnaanin halka. Iyo wiilkiisa yar oo leh kulan ciyaareed aad muhiim u ah oona doonayo in uu aabihiisa garabkiisa taagnaado. Iyo xaaska saaxiibkiisa qaaliga ah oo stress aad u badan dareemaysa, aadna ugu walwalsan xiriirka saaxiibkiisa kala dhexeeya, ayaa waxay ka codsanaysaa in uu u yimaado. Jay oo ka walwalsan marxaladahaas hortaagan ayaa waxa uu marka hore ku horumarayaa jaamacadda, waxaana uuna ogaanayaa in jaamacaddu ay dalacsiisay lagana dhigay madaxa xisaabaadka jaamacadda Cambridge. Jaamacadda asigoo jooga ayaa waxa ay soo wacaysaa xaaskiisa, taleefankana kama qabanayo. Waxa uu sii wadanayaa howlihiisa. Mar kale waxaa soo wacaysa xaaska saaxiibkiisa qaaliga ah, waxayna ka codsanaysaa in uu u yimaado maadaama ay dareemayso stress aad u badan. Ugu dambeyn marka uu u yimaado xaaska saaxiibkiisa, sheeko dheer iyo qancin iyo dejin kadib waxa ay leedahay saaxiibkayga iima fahmaya sidaad adigu ii fahmayso, waxayna isku dayaysaa in ay asiga u dhawaato. Jay waxa uu isla markaa fahmayaa in furiinka ay sababtay marxaladan, waxa uuna si degdeg ah ugu tegayaa goobta. Ugu dambeyn marka uu habeenkii yimaado guriga, waxa uu ogaanayaa in wax walba ay isbedeleen. 2 marxaladoodna uusan xaadirin, halkoodana uusan ka qayb qaadan. Waa midda koowaad ciyaartii wiilkiisu uu lahaa ma uusan tegin, garabkiisana kama uusan muuqan. Waa mid labaad bandhigii ay xaaskiisa lahaydna kama uusan qayb galin. Habeenkii marka la gaaro sida caadada ahayd, waa uu seexanayaa. Subaxiina waxa uu soo toosayaa waqtigii oo haddana mar labaad isbedelay. Jay oo la yaaban waxa ku dhacaya, asigoo aad u murugaysan waxa uu soo galayaa qolkiisa. Ugu dambeyn Jay waxa uu fahmayaa problemka meesha uu ka jiro inuu yahay inuu daryeelo familigiisa. Waxa uuna isku dayayaa inuu xaliyo midaas. Waxa uu Jia ku caawinayaa in ay bandhigeeda si fiican u qabsato, garabkeedana uu ka muuqdo. Si la mid ah wiilkiisana waxa uu ku caawinayaa inuu garabkiisa istaago uuna dhiirigeliyo kulan ciyaareedkiisa ugu horeeya uu ciyaaray. Xaaska saaxiibkiisana waxa uu u sheegayaa marxaladda dhabta ah oo saaxiibkiisa ugu jiro, ayadana uu ka qarinayo, taas oo ah shaqadiisa. Waxa uuna labadooda ku dhameynayaa xiriirkooda mid aad u wanaagsan. Ugu dambeyn Jay waxa uu fahmayaa in nolosha dhabta ay ka muhiimsan tahay howlaha kale ee dadku ku mashquulaan, xisaabaadka xalintoodana aysan la mid ahayn nolosha dhabta. Filimkuna halkaa ayuu ku dhamaanayaa. Intaas ayaan kusoo koobayaa khulaasada filimka. Asxaabay maalin wanaagsan. Channelkada ku cusub tahay subscribe saar, like, share, comment. Bye bye.